lecture 7 aad iyo aad dhagahayna ugu furtaan aan rabaa waxay weli hoos imaanaysaa management accounting laakiin si gaar ah inaan waxaan rabaa aan u saarno ahmiyad sababtoo ah budget process waa meesha lagu kala haray budget process marka habraaca loo sameynayo budgetingka ama odoroska aad iyo aad waxa inoogu yar inaan analysis galno analysis inaan bilownaan rabnaa oo maaragtay wax walbo aan maaragtay falaaqeyn karno maamula waxaa lagaa doonayaa ganacsigaagu in aad kaga badisid ninka xisaabaadka kuu tabinaya waktiga unbaa kuu diiday inaad fariisato xisaabaadkii dejiso qof ayaad u igmatay laakiin waxaa lagaa doonayaa waxa qofkaas uu kuu sheegayo cilmigeeda inaad leedahay fahankeedana aad leedahay deetana maaragtay si fudud aad maaragtay go-aamo aad uga gaarin kartid si aad u baaxad ugu yeesho ganacsigaaga aad u kobcisid marka what is budgeting budgetingka waa maxay horta ama odorosku waa maxay odoros waxaa la yidhaahdaa waa xeelad qorsheyn iyo xakameyn intaba huwan waa xeelad qorsheyn iyo xakameyn huwan budgetingka essential technique weeyaan waa xirfad aasaasi ah for management in terms of planning and control marka budgetingka waa sidaas odorosku marka waxaa loo diyaariyaa sanadle on a yearly basis 12 bilood oo kasto waxaa la diyaariyaa odoros okay specifically forecasting production and labor requirements marka wax markaad qabsanaysid waa inaad productionkii wixii aad wax soo saarkaagii iyo shaqaalaha aad u baahan tahay baahideedu labadaas waa inaad ogtahay waxbaa rabtaa inaad soo saartid waxbaa rabtaa inaad iibisid dee ma aragtay waa inaad ogtahay demandka meesha ka jiro demand markaa ogaatidna waa inaad ogtahay meeshaad wax ka keenayso inay kuu saxan tahay dadkii kuu qaban lahaa inay diyaar yihiin wax walba waa inaad isku hagaajisaa inta aadan hawsha gelinba the need for budgeting maxaa looga baahan yahay marka qorsheyna loogu baahan yahay imise saacadood jamac ahaan ayaa shaqaalaha ugu baahan nahay wax soo saarka sanadka okay waxbaa soo saaraysaa tusaale ahaan warshadaa leedahay waxbaa soo saaraysaa waa inaad og tahay total hours warshadaas ay furnaanayso sanadkii inta total hourskaas production la soo saaraya inta shaqaale u baahan tahay productionkaas inay soo saaraan inta iib waxaas markaa soo saartid inaad iib u helaysid all that waxay u baahan tahay budgeting planningka marka ama qorsheyntan waa statementyaal badan oo ishoos yaalla waaye oo mid walba si gaara aad u baari kartid sales budget waa gooni purchases budget waa gooni material usage waa gooni material maarata maxaan ku dahay inventory waa gooni waa inaad ogaataa qayb walbo si gaara inaad u ogaataa control isbarbardhiga farqiga oo daraska iyo natiijada dhabta ah waa variance analysiski weeyaan organization bal ka waran haddii iibiyahaaga ama marketing departmentka ama sales department haddii ku dhahaan waxaa lagaa rabaa 1000 kursi inaad soo saar 1000 kursiya aad demandka suuqa ka jiro okay production managerkaagana uusan waxba ka ogeyn oo 5,000 kursi wixii lagu soo alwaaxi lagu soo saari lahaa hadduu kuu soo dhigay ka waran waa coordination ma jiro departmentigii kuu qaabilsanaad iibka iyo departmentigii wax soo saarka kuu qaabilsanayd haddaynan is ogeyn waxaa ka dhacaya lacag badan oo aad ma aragta wax ku qabsan lahayd ama in wixii ay go-aan ama wax ka badan in lasoo dhigo meesha marka waa inay xiriir leeyihiin iibkaaga iyo soo garashadaada waa inay leeyihiin xiriir organization waa inuu jiraa oo budgetska ay isku wada xiran yihiin authorization and delegation waa inuu jiraa waxa loo yaqaano amar bixin delegationna waa igmasho waa inaad u igman kartaa ruuxa shaqadaasi iska leh golaha sare ee hay-adda agaasimahay usii igmanayaan agaasimahana maareyahana maamulahana maarata qofkii shaqada gacanta ka qabanaya waa ishoos joogaan kambaniga baaxadiisa ayay ku xiran tahay okay performance evaluation waa inuu jiraa dib u eegid natiijada dhabta ee odoroska waa inay jirtaa marka stages of budget aan fiirino sales budgetka ka bilaabayna sales budgetka ugu horeeya waxa la diyaariyo caadi ahaan war maxaan iibinaynaa horta maadadan aan soo saarnay imisaan iibinaynaa waa inaan diyaarinaa markaas kadib waxaan ku xijinaynaa production budget waxaan leenahay hebel wuxuu yidhi intaasaan aan iibin karnaaye intaasi wax soo saarkeedii diyaari materialkeedii diyaari waa isku jaango-an yihiin adoo mar walba buffer zone iyo qiyaas samaynayo
haddana markuu production departmentigii uu ogaado material usagekii waa inaad diyaarisaa ama materialkii isticmaalkiisii waa inaad diyaarisaa haddana soo iibiyaha ama logistic departmentiga inta uu soo iibinayo mid kasta marka hal daaqad uu ka eeganaya mid kasta halka daaqad ee asiga waafaqsan ayuu meesha ka eeganaya haddii hal nin waxa dhan isku wada hayana waa gooni oo shirkad yar ay tahay laakiin sales department production department storekii iyo purchase department ama logisticska mid walba daaqadii ku aadaneed ayuu ka eeganaya tusaalahan idin tusin doonaa laborka ama HR-ka dadka ku joogana hourskii shaqadii iyo dadkii ka shaqeyn lahaa ay diyaarinayaan marka mid haddaan u fiirino principal budget factor waxa la dhahayaa jiro principal budget factor waxaa la yidhaahdaa meesha ay wax ka go-aan ee lagu budgetkaas ama maaragtay oo daraskaas meesha lagu jaangoynayo sales demand a ugu horeysa caadi ahaan availability of supply haddii lagu yiraahdo kun shay ayaa iibin kartaa laakiin adiga materialki ay kaa go-an yihiin maxay kuu sheegi waa waxba marka labada dhinacba waa inaad fiirisaa waxaanaan iibin karaa waa heli karaa marka materialkii aan iibkaasi aan ku diyaarin lahaa okay hebel general trading aan fiirino marka hebel general trading wuxuu soo saaraa kuraas iyo miisas tusaale buuxa aan qaadanaynaa hebel general trading wuxuu soo saaraa warshaduu leeyahay kuraas oo ka aan usoo gaabsanay iyo miisas oo ma aan usoo gaabsano soo saaraa sales budgetkiisa aan fiirino waxaa lagu yidhi wax soo saarka maxaan kudahay aan iibin karnaa 2,000 unit oo kursi ah 2,000 oo unit oo kursi ah ayaan iibin karnaa kursigiina $100 aan ku iibin karnaa uu dhahay hours per unit laborka wuxuu ku sameeyaa 3 saacadood ay qaadataa in kursi la sameeyo 5 saacadood ayna qaadataa in miis la sameeyo saacadiina wuxuu inaga rabaa $2 ninka samaynayo soo maaha wixii oo dhan aan ogaanay waxaan ogaanay saacad ahaan waxaan looga baahan yahay ruuxa shaqeynaya lacagta uu naga rabo waxaan ogaanay storeka policy-gu u degsan waxaan hadda go-aansanaynaa marka banaanka waxaan ka doonanayno okay sales budgetka aan diyaarino marka chairs maxaa la dhahay 2,000 aan rabnaana la dhahay sicirka meeqa ma aragtay maxaan kudaa lagu iibin karaa 100 waa $200,000 meesha ka filanaynaa iib ahaan inaan sameyno sanadkan tableska maxaa la yidhi 1,000 xabo aan iibin karnaa la yidhi midkii meeqaan ku iibin karnaa qiyaas ahaan $200 la yidhi oo qiyaas fiican weeyaan ilaa suuqii la mid ah la soo fiirinaya waa taariikhdii hore wixii dhici jira go-aan marka laga gaaraya sanad walbaba khibraddii way sii ziyaadaysaa informationkan waa mid si sahlan loo heli karo totalki marka waxaan meeshan ka eeganaynaa 400,000 oo inaan sanadkan sameyno oo dollar okay maxaan sameynaynaa marka production budget maxaan soo saarnaa marka maadaama saleska loo baahan yahay 2,000 oo unit inventory-gana looga baahan yahayna ay tahay 200 oo korar ah ilaa 400 aan laga dhigay hadaa xusuustaan shaxdii hore oo baqaarka policy-ga u degnaa 200 laga rabo total production-ki wuxuu isku tahay 2,200 oo unit production department-ga go-aanad siisay waxaa tiri waxaan idinka rabaa 2,000 oo sanadkan aan iibin doono iyo 200 aad baqaarka ku kordhinaysiin 2,200 inay samaysaan iyo diyaarisaan diyaar waayo ku leeyihiin halkaas kaaga harayaan sales budget wuxuu soo diyaariyay production budget aad isla joogtiin waxa isla joogtiin production department-ga wax soo saarka u qaabilsan meeshaas oo go-aankooda uu ku egyahay iyagana chairs waa ogyihiin inta ay soo saarayaan tables waa ogyihiin baqaar shaqo kumana wax walba shaqo kumana ereygaas ugu dambeeyay rabaan meeqaan soo saarnaa 2,200 sida loo soo saaray way yaqaanaan way ka tagayaan okay material usage baqaarka ninka fadhiyo waa inuu ogaadaa ma aragtay maxaan ku daayay inta material loo baahan yahay ee productionkan soo socdo materialkii lagu sameyn lahaa waa inuu diyaariyaa maxaa noo yaala baqaarka oo ceyriin ahaan aan ku haysanaa iyo maxaan dibadda ka doonanaa chairs waxaa la yidhi 2,200 aan u baahnayn soo ma ahayn waxaa la yidhi 3 kiilo waay soo maaha halkii maaragtay halkii chair marka wood ahaan waxaan u baahannahay 6,600 oo kiilo oo loox ah tablesna waxaan uga baahannahay 1,300 oo lagu dhuftay 2 kiilo 2,600 kiilo oo loox aan uga baahannahay loox ahaan markii la isu geeyo 9,200 kiilo oo loox aan u baahannahay ninka wax soo iibinaya suuqa aadayo waxa la soo saaraya shaqo kuma laha waxa la iibinaya shaqo kuma laha ereygaas uu ka filanaya meeqaan suuqa ka keenaa 9,200 oo loox ah finish waa dhamaatay maaqa rinji ah u baahan tahay
waxaan u baahanahay 4,150 litir sidee ku ogaatay 2,200 oo maartay galaysa jaazka 1,300 oo galaysa tableska oo markaa ku dhufatay mid walbaba inta maartay paint galaayo waxaa kuu soo baxay 4,150 litir halaasu kaa rabaa hal warqadaa ugu qoraysaa dalabku wuxuu yahay 9,200 oo kiilo oo aloox 4,150 oo ah rinji adoo ku jaangooyay waxa aad iibin doontid adoo ku jaangooyay waxa aad soo saari doontid way isku xirxiran silsiladu waay soo maaha okay purchaseski marka waa kana lacag ahaan oo kaa rabaa marka hadda wixii uu iibinayo waa u sheegtay lacag ahaan meeqaa u dhiibaysaa marka materialkii hadday ahaayeen 9,200 oo maaragtay loox 9,200 oo kiilo oo loox haddaad rabtay loox ahaan waxaad ka jaraysaa marka inta baqaarka noo taalay ee dhimid u baahneed 3,000 oo looxa dhimid u baahneed soo ma ahayn 3,000 oo kiilo oo loox ah waan ka dhimaynaa banaanka waxaan ka rabnaa oo kaliya 6,300 bal fiiri waxaad inventory management ku jirtaa baqaarkaagina waa la socotaa soo maaha 9,200 intaad ordi lahayd soo gadanayd ku fariisan lahayd baqaarkaaga wixii yaalay maaraynteeda ku jirtaa 6,300 oo loox ayaa soo gelaysa lacag ahaan intaas jeebka ka bixinaysa marka lagu dhufto looxiiba ma aragtay kiiladii markay tahay $10 $63,000 gacanta ka saaraysa orad noo soo iibi loox rinjiga sidoo kale 4,150 litir ay ahayd 4,150 litirkii loo baahnaa 2,000 oo litir ah already baqaarka taalo maxaa banaanka uga soo iibinaysaa 2,000 litir ka dhin meeshii 2,150 litir banaanka uga baahan tahay lacag ahaan $5 markii lagu dhufto 10,750 clear soo maaha waxaad lacagtii aad dhiibtay marka qofkii wax kuu soo iibinayay adigoo og waxa ma aragtay maxaan ku daay aad iibinaysid iyo odoroskii iyo dadka kuu imaanaya inaan waxba ku go'in iyo qiyaas ahaan maarayn kale u baahan tahay inaad suuqa ogaatid inaad socodka ogaatid inaad ma aragtay sooyaalka ogaatid waxaasaa go-aan ku gaaraysaa lacagtii nadiif ahaad bixinaysaa markaad marka purchaseskii aad ma aragtay aad meesha uga baxdo labor okay laborkii ayaad meesha gelaysaa marka labor waxaa waaye dadkan waxaan samaynayo kuraastan lacag ayay qaadanayaan free kugu samayn mayaan lacagtaasi costigaas marka waa inaad qorataa aada ogaataa chairskii marka waxaan dhahnay 2,200 oo chair ay ahayd halkii chair 3 saac lagu samayn karaa 6,600 oo saacadood aad gelaysa meeshaas tablekii waxay ahayd 1,300 oo xabo aan rabnay inaan samayno waxaad gelayso 5,000 oo saacadood oo meesha gelayso 6,500 iyagu waxaad iibiso iyo waxaad baqaar ka dhigato shaqo kuma laha shaqaa gelayso cumaala galaya intaasay kaa rabaan soo maaha waxay samaynayeen oo dhan isku geynaysaa 13,100 saacadood ay shaqeeyeen saacadiiba haddaad kula heshiisa $2 26,200 ayaad laborka aad ula isticmaalaysaa hadda waxaad og tahay loox waxaad kusoo gadanaysid waxaad og tahay rinji waxaad kusoo gadanaysid waxaad og tahay maal ama xoogii lacagta aad ku bixinaysay og tahay markaad isku wada darsato marka waxaa kuu soo baxaayo ma aragtay waxaa kuu soo baxaayo wixii ugu dambeeyey ee budget ahaan oo daras ahaan iibkii wixii kaa galayay iyo wixii kuu soo baxayay saleskii minus cost gross profit-kii kuu soo baxaysa marka sanadka waxay maaragtay budget statement waxay diyaariyaan profit and loss managerial accounting xataa waa ku jirtaa tii financial accounting maaha kuwaana way diyaariyaan marka waxaa kuu soo baxaayo faa'iidadii sanadkii aad filanaysay adigoo habraaci si toos ah u hoos maray insha allah halkaanaan kusoo koobaynaa waxaa inoo dhiman financial planning iyo strategy iyo waxaa inoo dhiman ma aragtay maxaan ku dahay governance oo very important strategy oo very important especially dadka ma aragtay strategic level decisionska gaarayo ayaa inoo dhiman financial planningka waxyaraan idin siinaya financial planningka waxa weeyaan qorsheynta maaliyadda waay hadda inta aan soo marno oo dhan accountancy waay financigi ayaa inoo dhiman finance ayaa inoo dhiman financial planning financial management investment appraisal waxyaabahaas oo dhan aa noo dhiman ilaahay hadduu idmo lecturekan oo duuban waxaan soo dhigaynaa insha allahu tacaala stuudiyahan kusoo duubi doonaa iyadoo dhammaystiran ayaan waxaan soo dhigi doonaa online ilaahay hadduu idmo waa ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina insha allahu tacaala mar kale aan is arki doonaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu